ilaahay baan uga mahad celinaynaa hawshii la isugu yimid oo waqtiga la rogrogay muddada halkan maanta loo fadhiyay caaway noogu dhameeyay si guul ah iyo safgarad taas mahad maanteeda ilaahay baa iska leh inta kadib waxaan rabaa halkan aan uga tacsiyeyno dadkii Soomaaliyeed ee waxyeeladu ka soo gaartay dhacdadii 19 February mansab kasta iyo magac kasta ay leeyihiin intii ku dhimatay Allah u naxariisto intii ku dhaawacantana caafimaad Allah siiyo runtii waxaan rabaa in halkaan uga mahad celiyo taasi kadib intii ka qayb qaadatay soo abaabushay ka soo shaqaysay gacan ka geysatay inaad waa ku mahadsantihiin annagoo runtii qayb weyn ka ahayn safarkeennagana ay qayb ka ahayd inaan hawlahan xal u helno ka socday maalmahan muddadan dambe magaalada Muqdisho ilaahay subxaanahu wa ta'aalana waa annaga iyo intii ka qayb gashay waa nagu guuleeyay dhammaan mas'uuliyiinta ka qayb qaadatay oo tanasushay isaga soo dhawaatay waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin intaas kadib dhacdadaas waxaa laga gaaray safgarad sidii hore lagu akhriyay statementiga iyo sidoo kale mudaharaadkii ay ku baaqeen ama ay cilaamiyeen midowga murashaxiinta oo isagana meel la isla dhigay waqtiga uu dhacayo xilli ku habboon iyo qaab ku habboon inay ka soo wada shaqeeyaan xukuumadda iyo dhinaca midowga murashaxiinta waxaa xusid mudan in aad iyo aad la isu soo dhawaaday wax badan la rogrogay la gorfeeyey jawi deganna lagu wada hadlay hadda kadibna aan ku kalsoonahay inay sidaa ku socon doonto hawsha iyadoo sidii la xusayba qodobadii laga wada hadlay ay ka mid ahaayeen arrimaha doorashooyinka iyo sidii dalka doorasho xor iyo xalaal uga dhici lahaa loo wada geli lahaa ayadana runtii jawigaasi wuxuu ahaa jawi didiilo leh ummadda Soomaaliyeedna u leh runtii aragti cusub iyo maalmahan dambe arrimay socday rajo ka daba marinaysa waxaan ugu baaqaynaa cid walba ama walaal kasta oo ka maqan arrimahan in waddanka doorashooyinka ka dhacaan laga baxo waqtiga isbeddelku si u dhaco sidii loogu talagalay inay ka soo qayb galaan waxaan cid walba ugu baaqaynaa in dhinaca gacanta wanaagga gacan laga geysto dhinaca isu-imaadka iyo heshiiska gacan laga geysto aanay cidna ka qayb qaadan wax sii fogeynaya ama wax sii kala durjinaya waxaa runtii xusid mudan qof kasta oo mas-uula ama dadkeena mas-uuliyiinta ah in laka rabo inaan mar walba ku dhaqaaqno ama aan ka shaqayno isu soo dhawaanshaha iyo in doorasho dalka iga dhacdo sidii loogu talagalay inaan ka shaqayno aanan marna ama deegaan ama dadka Soomaaliyeed mas-uuliyiintu ayna ku matalin wax keeni kara kala fogaansho taa cid walba waxaan leenahay arrintaas ha laga digtoonaado hana la isu yimaado doorashadii iyo arrimaheediina hore aan annagoo heshiis ah oo walaal ah oo doorashadu tahay xalaal aan hala wada galo arrintaasna waxaan dareynaa baaqaas waxaan leenahay jawigan iyo wada hadalkan caawa halkan ka dhacay runtii wuxuu yahay mid farxad leh mid bishaaro leh mid rajo fiican gelinaya dadka Soomaaliyeed inaan hore u sii wadno hore loo sii wado ayaanan rajo weyn ka qabnaa kuna kalsoonahay waxaana leenahay warkii iyo xaaladii aan la soconayn waqtiga doorashada meesha ha laga daayo yaan meesha la soo gelinin cid walbana sidaan ugu baaqaynaa waan mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.